Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Caawa waxaan qaadanaynaa cudurka gaaska ama xanuunka gastriga loo yaqaano dyspepsia. Waa xanuun bulshadeena inta badan dhib ku hayo aysan xal ka gaarin sida degdega ah. Waxaan rajaynayaa in aad fahantaan weliba aan ka bixiyo warbixino kooban insha Allah overview ah. Kow, waa maxay xanuunka loo yaqaano gaaska? Jawaabtii waa tanaa. Waa calaamado isku tegay oo muujinaya in uu qofka dhibsanayo qaybta kore ee caloosha bogga iyo qaybta hoose ee caloosha. Waa maxay sababta gaaska? Jawaabta, badanaa waxaa loo sababayaa in ay keento bakteeriyada loo yaqaano Helicobacter pylori oona sababto virus, fungi iyo alcohol, biyo wasakhaysan iyo cuntooyinka aan caafimaadka lahayn. Saddex, sideen ku ogaan karnaa in uu gaas ku hayo? Jawaabta, bog xanuun ama caloosha oo aad u adkaato, in ay hawo ku jirto camal, dibiryo, lalabo, daaco, afka oo ku qalalo iyo cuntada oo kaa xiranta. Afar, maxaa nagu badiyo gaaska? Jawaabta, qaabka cuntadeena oo aad u qaldan, xilliyada aan cunno cuntooyin aan ahayn waqtigii saxda ahaa, ayadoo loo baahan yahay in aan hal mar cunto qadayno ama aan qaadano iyagoo loo fiirinaynin cuntada nooca ay tahay, dufan inay leedahay iyo in aysan dufan lahayn, dufan la'aan. Biyaha cabaalkeena oo aad u yar. Shan, goormee u baahan tahay in aad dhakhtar u tagto, weliba adigoo iska soo daaweynayo cudurka gaaska? Jawaabta, cuntada hadday kaa xiranto, miisaankaada oo isdhimo, dhiigga oo soo raaco matag ama saxaro. Halkaas ayaan ku soo jawaabaysaa goortii aad u baahan tahay in aad dhakhtar u tagto. Lix, sidee ugu hortagi karaa gaaska? Jawaabta, in aad cunto sax ah waqtigeeda, in aad yareyso daawada mar walba oo iska qaadanayso adigoosan la tashan wax dhakhtar ah. Haddaadan dhakhtar la tashan, cudurka gaaska markasta dhibaato ayuu kuu keeni karaa. In aad dhaafto waxyaabaha aasidka leh ama aashitada iyo cuntooyinka dufanta ku badan tahay iyo weliba basbaaska zaa'idka aad u isticmaali karto ayaa ka hortagi karta in aad gaaska iska yareyso. Toddobo, daaweynta gaaska. Sidee iskaga daaweyn kartaa gaaskan? Jawaabta, in mar walba aad daawo qaadato muhiim maahan, laakiin kow waxa in aad saxdo dhaqanka cuntada, la tasho dhakhtarka kuugu dhow, ha qaadanin kaniini kasta oo lagu dhaho gaaska ayuu u fiican yahay sida overdose. Biyo badan cab subaxii, caloosha socodsii. Insha Allah intaas dhan waa ka badbaadaysaa hadduu Ilaah yiraahdo. Waad mahadsantihiin. Halkan ayaa cashirkeena kusoo koobaynaa. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.